waxaasoo dhan waa been cabdisalaam gabadhaysi weyn gabaroo ku imaatay iida 3 cunug Soomaaliya ugu dhimatay 3 cunug guriga hooyadiis ala weydiiyay asnaftigiisa ala weydiiyay cabdisalaam gabar nasrullah ma taqaanaa de oo hooyadeed Xaliimo Geesay la dhahay de oo yaqaana dirisay laba guris ku dhawaayay laba guris ku dhaw ya gabadh 8 caruur ay dhashay Soomaa nacam ها سدح صومالي أو قدمتي ها أوكي محل شنو هي ستا نيكا هذا جور سدوان نهاب أو سعرولو saaxiibayaal halkan waa Xamar Cada TV muuqaal kale ayaan idin heynaa baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay waxyaabaha la soo dhigay dadka badankii jahwareer ay ka qaadeen qaarkood way isaga aamuseen halka kuwa kalena ay bilaabeen in xogo dheeraad ay ka raadiyaan waxyaabaha ay kala socdaan misana ay ku ogyihiin Hani Kamaal iyo Cabdisalaam Ali Xaashi haddaba waa marqaatiga nool Nasra ayaa lagu magacaabaa waxa ay ku sugan tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya arrimo dhowr ay ka hadashay oo ku aadan waxa ay ka ogtahay misana ay kala socoto sheekada Hani iyo Cabdisalaam Nasra waxa ay tiri waxa muddo wada nooleen Cabdisalaam Ali Xaashi Soomaaliya waxa uga dhimatay bay tiri 3 caruur 5 caruur ayaa hadda ifka u saaran wadarta waa Cabdisalaam Ali Xaashi uu dhalay waa 8 bay tiri haddaba 5taasi ayaa hadda ifka u saaran 5tooduna waxa hooyo u ah bay tiri inanta lagu magacaabo Hani oo maalmihii ugu dambeeyay sheekadeeda aad loogu murunsanaa sheekadaasi oo buuq dhalisay isla markaana dadka badankii ay ku kala qaybsameen waxa ay tiri Hani waan aqaanaa daris baan ahayn bay tiri in muddo waa wada nooleen isla markaana waxa aan wada deganeen bay tiri 2 guri oo isku dhagan haddaba saaxiibayaal dadka badankii arrinkaasi san ku jahwareereen xaqiiqada dhabta waxa ay tiri Hani iyo Cabdisalaam waa 2 qof oo isqaba isla markaana caruur isu dhalay Kamaal Cabdul gabadha miskiinada waxa uu ku haystaa sixir sidaas ayay tiri inantaasi oo ku sugan magaalada Nairobi haddaba saaxiibayaal dadka badankii arrinkan waxay u fahmeen mid dana gaaray qorshooyin laga leeyahay halka kuwa kalena ay siyaabo kale uga hadleen sheekada daba dheeraatay Hani Kamaal iyo Cabdisalaam musalsal ay noqotay dadka daawada social media isha ay ku hayaan baraha bulshada waxa ay la socdaan misana ay indheynayaan hadba waxyaabaha ka soo kordha sheekada musalsalka ah ee la xiriirta arrimaha Hani Kamaal iyo Cabdisalaam Kamaal waxa uu leeyahay Hani waa xaaskiga cid ka hadli ka dhaahina ma jirto ninkan hadii uu qabo muxuu marar u soo hadli waayay muxuu u ogaan waayay xiriirka aniga iyo Hani naga dhaxeeyay ee muddo aan ishukaansanay 3 bilood ka hor meherka muxuu u ogaan waayay muxuu u soo hadli waayay wala iyo bille sheekadan qof waliba waxa uu sheegayaa waxyaabo markaas u muuqata in la aamini karo haddaba Cabdisalaam waxa uu leeyahay 25 sano ayaan qabay Hani caruurtana iyada ayaa dhashay haddaba dadka badankii waxay isku raaceen daruuf hooyo Soomaaliyeed ku qasbi karta in caruurteeda in karto ma jirto laazim fihi shay waxba jira timir ballafa ku jirta laakiin wax kasta waxa ay naga og Allah subhanahu wa ta'ala Hani ma saxan Kamaal ma saxan Cabdisalaam Ali Xaashi ma saxan walla waa la isweydiinayaa dadka badankii waxay tilmaameen hadii Cabdisalaam uu qabay gabadhan markii Addis Ababa ay kula kulmaysay Kamaal muxuu uga soo hadli waayay meherkoodii muxuu uga soo hadli waayay Turkiga markii ay ku kulmeen oo ay qalgaleen sheekadan maxaa hadda soo cusboonaysiiyay raadiyo lambarkaygaan siiya qadkaygaan siiya Cabdisalaam si fiican isku naqaanaa اوكي إلين وحواي شيكده هاد وحواي وحاسو دن بين وايدي وحاسو دن waa been Cabdisalaam gabadhaysi weyn gabaroo ku imaatay iida 3 cunug Soomaaliya ugu dhimatay 3 cunug guriga hooyadiis ala weydiiyay asnaftigiisa ala weydiiyay Cabdisalaam gabar nasrullah ma taqaanaa de oo hooyadeed Xaliimo Geesay la dhahay de oo yaqaana dirisay 2 guris ku dhawaayay 2 guris ku dhaw ya gabadh 8 caruur ay dhashay Soomaa nacam ها سدح صومالي أو قدمتي ها أوكي محل شنو هي ستا نيكا هذا جور سدوان نهاب أو سعرولو نيكا هذا جور سدو نيكا تحقله هذه حقيقة الله
okay waa gartay sheekada hadda waxa waay marka anaga dirisa ahayn diris sixirkaani waxa la sheegay gabadhu wuu sixirtay lahay حقيقي وحقيقي درسا درسا عبد السلام الله تهريب وكل ماضي حتى ويدي حتى حدا تهريب وكل ماضي دغبره كنت قال نيروبي دغرو حاسه ويدي انا يوتيوبر يا ما فهمت سفيعا واك صور كيسان اركي والله waxa kulaalka iyaga sawir kiisaan arkay يا نيروبي حقيقة جبتها marka calaa kulli halkaas aan nooga horeysay Kamaal iyo hadalkiisa maalinkaas Istanbul gabadhii Faransiiska anaga noo aaday Istanbul la tagtay halkaas ku ogaatay halkaas aan ku ogaanay ka bacdi fiidiyoodii aan daawanay waxaan aragnay meher afkuya ka dhacay oo 2 bilood iyo 3 bilood ka hor asna ah oo hana muumin ah oo kaadi marka macnaha meherkan ma idinku maba ogeyn maba arkin hore loo ma arkin aan kayna waxa soo dhan ma jiraan family ahaan haye markii hooyadeed aabaheed ma noolyihiin kulli wax war ka haya lama walaalaheed aabaheed kulli xamar ay joogaan haye marka meerkii markaan aragnay oo afgooyin oo ka dhac aragnay waxaan contact la sameynay oo aan raadinay si aan ugu sheegno waxaan waxa ay yihiin Kamaal aabihiis iyo ehelkiisa maadaama afgooy ay degan yihiin haye nasiib wanaag rag saaxiibaday ah iska soo fariisaday oo reer afgooy ah iska fariis haye reer afgooy asla markiiba gartay Kamaal aabihiisa leela hadashay numberkiisa leesiyo leela hadashay waa gartay oo adigana rag ku garanaya aniga rag yaqaan asiga rag yaqaan waa gartay arrinkan u sheegay Kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay dadkii dhan fajacay ku noqotay arrinkaas dhamaanteen markii hore fajacay nagu noqday markaan kilibka aragna qof walba oo yaqaan ama ehelka macnaha wuxuu noqday qof oo dismoraal uu noqday wax aan qaado weyn nal noqotay haye okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkan rabayna u noqdo haye meherka marka aan fiiriyay waxa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga عمران كوا قانا أنا وقانا اسكو حافظ هاجرني هاي سيدا اسكو حافظ وهاي اسكو هاي هو قرتي ولو مدو صدن سنة كله وأنا اسكو حافظنا أنا قلت لي يران اسكو حافظه هاي وأنا اللي قاعد حافظ عند الجناء صوص أحمد نور هاينا اللي يرى أحمد نور هاينا هو قرتي الشيخ وحميريها بين عيسى وحنا كارك أحمد نور وفدية هاي الشيخ مركو ميرك جيديها أنا كليب كان في السدموكت وصح الشيخ مركو ميرك جيديها أفر وحيالله قبل ميرك كوهجاجا مدان قدر له وحيد وحى فدية ولي جيدي ها اللي يرادو مؤمن محمد مؤمن محمد وهنا أبيض واقعنا هاي وصدقها معنا وصدقي هاي مؤمن واحد ماشي وقمت شيء مؤمن محمد كليه وحمد نور هيني محمد نور أبا وديبا يقبل هنيه هاي واي يا ابن أنت أصلا كل السجاب ده وحيل لما قبل أبيضا بديبي قبل أبيضا بديبا وفريا هاي كليبك حتى ديبها الله فيريو شيخ يا كليبك لأن هذا الكوا وذا كلير أنت وصعده هاي marka Axmed Nuur ninka la yiraahdo ee Muumin Maxamed iska dhigay oo hadlaana muusiga la saaray ku fiirsa kilibka xataa dib loo fiiri okay codka Axmed Nuur ma la maqlay hay inta kale wala shiiqa wala qof walba waa la maqlaa mafaan hay Axmed Nuur ka naftigiisa contact la sameeyay hay waa Axmed Nuur aan qaan hadda numberkiisa hay 2017 marka xamar tagayo xataa ay midaas aragna hay arrinkan dhalinyaradii kale xataa xanaaqda xaafada ahayd waa la wacay kulli xaal odagii wuxuu wacay Axmed Nuur la hadashay waa soo ma ninka hani aabaheed waa kan la hadal haye gabadha adiga soo nama siin istaafar waxaan ka soo hilmaamay cidda marka Kamaal iyo hooyadiis iyo dadkiis ehelkiisa Axmed Nuur waxay ugu tageen xamara loogu tago gabadha laga doontaba markii hore kabacda odaga inta sheekooyinka sii sheegay odaga Kamaal dhalo aad u fiican way ma sha Allah
waan ugu dhacdo yiri inaad yartano xamaraan tagnay gabadhan weydiisano waana la soo siiyay anaga markaas waxaan dhawnaa meherka haddaan reer afgooyanahay wiilka gurigiisa ka dhaca okay imaa guriga marka adin noo imaa asaga laba noo kala noo yimi laba cunug kale hor u soo wata marka ehelkii saas uga dhigaa macnaa hani ehelkeedi haye hadde hani ehelkeedu aabaheed muumin maxamed walaalkeed iyada la dhashay aad jooga xamar jooga hooyadeed makashee caliya xamar joogta markaas haye u fiirso waa gartay cidaanu xamar gabadha ka dooneen axmed nuur asii hooy habeedii hooyadeedna waa joogeen xaqiiqda marka la rabo waay waaliyaad waa intaas anu waxaan u aamusnay oo waxaan walaacan iyo balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waay ilmahayga hooyadood waay wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel anaa cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganahana macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii igu ka dambeysay gudoomiyaha xaafadda Andashbari community ina ahayd baan anigu ogaa ma aqaan hadii in laga wajin iyo kulli xaal ninka la yiraahdo kadib marka meeshii iga wad odayga way ka soo doonteen islaanta iyo wixii waa la yima kadibna way israaceen macnaha xaggay ugu yimaadeen isagoo laba wiil wata waa meherka halkaas ka dhacay waa gartay meherka marka axmed nuur waxaa la ninka axmed nuur waxaa la hadashiyay ninka la yiraahdo cabdixamiid oo kamaal aabihiis caadi ula hadlay inuu soo xabo ahayn oo been u sheegana waa arka markaas markii wada hadleen wuxuu ugu jawaab gabadha aan ku siiyay gabadhayda maba ahaynba cabdixamiidkii laftigiisii bay afcada lagu yiraahdaa haye iyadoo lala taagay yahay la yiri haye cabdixamiid muumin waxa uu daatay waxaan in wax ka jir aysan jirin xamar cadda TV aad naga daawanaysaa saaxiibayaal haddaad inagu cusubtay subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad horey inoola joogtana madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin tala iyo tusaale haddaad inoo haysaana qaybta comment inoo ku reeb waan idin akhrin doonaa waana badanka youtuberada Soomaaliyeed xaaji ducoodi leh meesha guduudan madow ka dhigay saad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee daawada muuqaalada xiisaha badan ee aan soo dhigno muuqaalkan kiisa xigantayna ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo